عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو خذة بالخذة حتى ولو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، سيد لسعتان أما دكتهان ما أنت وتاريخ 14 مالين تلاجة فبراير 2023 maalinkaas taariikh 14 gaalada waxay ugu magac dareen maalinka jaceylka. saas darteeda adiga muslimka ah ma ku bannaan tahay inaad u dabaaldegtid u hambaliyeysid maalinkaas? waa may. maalinkaas ha ku bannaaneen walaa christmas day ha ku bannaaneen walaa new year. acyaadu lkufaari jamiicaha gaalada ciidahoodo dhan kuma bannaano haddaad muslim tahay inaad u dabaaldegtid. saas darteed waxaad arkaysaa dad Soomaali ah muslim sheeganahayo oo u dabaaldegahayo maalinka taariikh 14 Mother Day, New Year, Christmas Day oo u hambalyeynayo. war maalinkaas gaalada waxay sameeyaan warka ma haysaa. waa maalinka ugu zina badan, waxyaalada fuxshiga ugu xun ay sameeyaan. waa maalinka waxyaalada ugu qurun badan oo ugu xun ay sameeyaan. saas darteed adigana waxaad ku tasjiicinaysaa inay xumaantii sii wadaan u dhiirinaysaa bedelkii aad fari lahayd wanaaga xumaanta aad ka reebi lahayd. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahday xadiiska hadda aan soo sheegnay, waxaad qaadi doontaan oo raaci doontaan ummadihii idinka horeeyay yahuud iyo nasaaro wadooyinkoodii dhaqankoodii ayaad raaci doontaan oo taqliidin doontaan xataa hadday galaan god maansa nugulay idinkana waad gelaysaan ama waad isku dayaysaan inaad gashaan. godku maansa nugulaydu qofkii arkay ama garanaya ayaa yaqaano waa god cariiri ah, mugdi ah. laba shay oo isku darsaday cariirinimo iyo mugdinimo. ka waran qofkii isku day meesha inuu galo isagoo qof kale kaga dayanayo. nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi fi xadiisin aakhar man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. qofkii isku ekaysiya qowm ayaga ayuu ka mid yahay. marka adiga inaad gaalada ka mid noqoto ma jeceshahay? waa maya. hadda kadib ka digtoonow inaad gaalada ciidahooda aad u dabaaldegtid. aan ka digtoonaano dhammaanteedna. min xusni lislaami lmar'i tarkahu maa laa yacnihi. nabiga sal slam wuxuu yidhahday qofka islaamnimo wanaagiisa waxaa ka mid a inuu ka tago waxyaalada aan waxtar u lahayn, aan anfacaynin adduun iyo aakhiro. bal iska daaya tan haddaad samaysid waxay ku ekaysiini gaalada inaad jeceshahay. mas'alatu alwalaa walbaraa inaan fahnana aad bay u wanaagsan tahay, waa muhiim jiddan. marka احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز والآخرة خير وأبقى فمهما أعجبك نعيم الدنيا فنعيم الآخرة خير وأبقى. حداد ضي شربته قف أكو ضيته حداد ربته. نبي صلى الله عليه وسلم كضيو، صحابة دي كضيو، سلف الصالح كضيو. انت صحوف فيلن عدك لا أغبى انت هاي مجرتو كضيو شيء قدوة مقالك أن ما انت صحوك هاي. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.